xilliga doorashada waxay dowladdu aad isugu dayday inay faragelin badan samayso waxay isku dayday inay ciidamada tallaabooyin ka qaado waxay isku dayday askari kastoo shabaab la dagaalamaya furin ku jira inay ka soo bixiso oo ay tiraahdo kaale qoriga inta soo qaado dagaalan oo dhibaato iyo mushkilad geyso waxay isku dayeen 300 oo musharaxnimo walba in la yiraahdo waxa tahay sidan iyo sidan iyo sidan waxa soo dhan kulligeed waa wax dawladnimada Soomaaliya lagu luminayo oo meesha lagaga saarayo lagu waxaynayo waxay keeneen inay wasiir baa hadda la xidhay maxaa lagu xidhay waa su'aal wasiirkii amniga oo hawl shaqo u jiray baa intii loo yeeray oo leeyahay kulan baan rabnaa inaan kula qaadano oo meel kale looga yeeray markuu soo degay baa la xidhay maxaa lagu xidhayaa waxaa jirtay maxkamad warqad ay mar hore qortay oo la yiri dad baa loo haystaa shabaab iyo waxay ahaayeen ba isku jiro la yiri dad baa la dilay waa laga soo tagay afartii bishii abriil baa maxkamaddu waxay qortay ninka in lagu waayay dambiyada wasiirka loo haystay waa lagu waayay waxa lagu waayo wasiirkiisa oo shaqadiisu u tocdo magaaladii maray waa la qabtay waa la xidhay waa la hadlay isaga wuxuu ku yiri waran in xidhan maan wax laga hadlaysaan waa ma waxa loo yeeray dad qaraabadiisa intii la hadlay waa kaale imaadaan ka wada xaajoonay maxaan ka xaajoonaa waxa la yiri kow waa inaad ogolaataan si aan u sii deeno wasiirka Jubbaland inaad tirahdaan dhismaheeda ma aqoonsanin way burburtay laba in doorasho lagu qabto goboladaas gedo saddex ciidamada la hayo in la soo wareejiyo markaas waxaan sameynaynaa heshiiskan nala gashaan ma isaga soo deynayna waxa la yidhi heshiiskan uu idin lama gali karo dawladda Jubbaland la yiraahdo way jirtay qabiil la meesha kuma shirinaysan Soomaaliya maamulka soo dhisatay waxaan aqbali karnaa ma isagii soo daaya Jubbaland kala hadlo waxaad kala hadlaysaa wasiir xasaanad leh oo la dambi waa lagu waayay oo iyagu cadeymaha waa la cafiyay waa lagu waayay ay warqada qoreen ba inta la maraya intii loo yeeray niman aqoonyahan oo jufadiisa oo loo yeeray ba inta lagu la hadlay waa ceeb waa waxaan saliya raadayn waa wax meel loo qaado aan lahayn waxa laga fikirayo wax laga hadlayo ma dawladnimadii Soomaaliya waxay gaadhay in noocaas loo dhaqmo ma waxaan oran karaa magafa ka dilay magafa waxaan ku maqlay jiray saxaraha Liibiya niman intay dadka qaadaan isxambaana oo magafa dawladnimada Soomaaliya magafa isugu noqotay wax sax ma waxa ku xigay odayaal dhaqan baa is abaabulay oo jufo ahayn oo qabiil ahayn oo Soomaaliya oo gobolka Gada ka tagay waxay dhahan madaxweynuhu haddii wax dhaqan Soomaaliyeed uu jiro dad wax ka dhaxeeyaan odayaal baan lagu ixtiraam haddii dawladnimo tahayna lagu ixtiraamo arrintan hanagala hadlo wasiirka hadalku wasiir madaxweynuhu ku yiri waxay ahayd ma aqbalayno Jubbaland dhismaheedii ninkaas wuu xidhan yahay Amnesty International baa haysata Amnesty International wadan dagaal sokeeya ka dhacay burburka noocaas ku jiro Amnesty wax ka qabanaysa wax ka og maxay tahay Amnesty wax ka qabata Cabdiraxmaan Cabshakuur shalay wiilashii la socday la leeynayay Amnesty wax ka qabata dadkii beedhaba lagu laayay ee lagu dalacsiiyay ninkii ilaha xoog baan leena waan leynaynaa hadda taliye ciidan looga dhigay what is the Amnesty haday maanta wax mudanaysa ma hoggaanka dawladda federaalka yaa u baahan Amnesty sharcigeeda haduu qabanayo inuu soo keeno Amnesty uu ka adiga sharcigeeda odayaashii lug bay sayidka kaga soo lugeen ilaa madaxtooyo lugna way ku noqdeen hatta waa lagu ixtiraamay in la qaado leeyahay hoteelada la geeyo away Soomaalinimadu away dawladnimadu away waxa laga hadlayaa waxaan oran karaa wasiir Cabdirashiid dambi uu leeyahay kuma xidhnay wuxuu ku xidhan yahay Jubbaland kaale nala burburi isaguna wuxuu yiri waan dhisay waxaan dhisay ma dumin karo waxa kaliya lagu hayo waxaan u baahanahay beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed kulligood inay arkaan waxa maanta villa Soomaaliya ka socday Soomaaliya inuu dib ugu celin doono dagaal sokeeye mid qabiil mid beeleed mid kala fogaansho iyo inta dhibaato inuu kulligii keeni doono waxay yiraahdeen waan cuna qabataynaynaa Jubbaland garoomadan xidhaynaa baa leeyahay oo maxaa la xidhayaa diyaaradda Doobley ka imanaysa ee Kismaayo imanaysa 30 daqiiqo soconaysa ee $80 laga qaadanay waxay dhahaan waa inay xamar timaado dal Kismaayo timaado Kismaayo markay ka baxayso xamar tagto Doobley timaado
$230 lagu charge gareeyo 2 saac iyo badhna ay hawada ku jirto socoto waxay keentay islaantii umusha ahayd iyo tii foolatay sakaraadka ahayd iyo qofkii lala soo cararayay intuu waayay inay maanta jiraan kiisas xeer ilaalintu ay soo gudbin doonto madaxweyne farmaajo iyo wasiiradoodu waxa ay geysteen ijraamka ay geysteen inay dadkii ku baaba'een caafimaadka aadi lahaayeen iyo tallaabooyinka qaadan ay dhakhaatiirtooda maanta dadna ay ku dhinteen wadada dheer intay soo qaadeen roobka oo shabaab ay dhibaato ugu filaayeen inay maanta dad ku baaba'een ay u baahan tahay kuwa xuquuqul insaanka u doodiya maxkamadda caalamiga in loo gudbi doono biilashaan aan diyaarin doono haddii la haydo dadka wax ku gaadheen arrintaas waxaa dhacday diyaaraddii xamar ka baxaysay ee Kismaayo tagaysay agaasimayaal baa lala kulmay waxaa la yidhi keen baasaboorkaaga wuxuu Kismaayaan ka yimid waxaa la yidhi Kismaayo ma naqaanee keen muwaadin Soomaaliyeed oo shir u tagay shaqo yaa baasaboorkiisa intii la qaadayba intari loogu dhuftay Muqdisho from Kismaayo to Muqdisho waxaan su'aal kula yaabayna marka Kismaayo aad ka timid waa dal kale waxay noqotay intii la xanimo lala hadlay in la yiraahdo qabiilkee tahay jufadeed u dhalatay xagee maxaad qabataa maxaad ka doonaysaa in intaas oo dhan la maro waxay kaliftay isla immigrationkii federaalku uu lahaa baasaboorka lagu dhuftay exit-ka laga dhuftay Kismaayo in ay kaasi waa ma soconayo exit labaad loogu dhuftay Muqdisho oo laba exit ay noqotay in hal baasaboor ku dhacdo waa immigration state-ku ma laha waa federal level waxa sababay hadda noogu joogaan ma garanayo waa cid la cuna qabateynaya maanta haddaan anigu doono meel alaaliya meeshaan doono inaan u safro without permission koodan meeshaan doono aadi karaa hadday berri igu dhalato berri baan safri karaa cid la cuna qabateynaya waa ayo waxaa la leeyahay sharar baa laga qayb galaya hebel wasiir baan iyo kanaan iyo kulli aan sidan yeelo kanaan yeelo war wadankani maanta haddaan idhaahdo dawladda Starbucks-ka kafeega ku cabeysay shalay timida wadanka wax laga soo maray jirin haddana maanta ma aqoonsani madaxweynihiisa iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo dawladda midna ma aqoonsani dawladda iimaha lamana shaqeynay ma la yaabis baan leen shacab baan shalay tarxiyo u soo soo meediya dhaawacna wadanaanu keen marka kafeega la cabayay maantana waxa la taagan yahay wadanka meeshii dib loogu celiyo sax loo yeelo iyo doorashada shaarka ma geelayaa ma leekaanaya maxaa kalsooni haday jirto u diiday inay tagaan wadankooda sida yeelaan oo sharaxaan waxay aad isugu dayeen doorashada Jubbaland inay sameeyaan mid ka cuntii ka jirtay koonfur galbeed laakiin waxa taala meesha mana sameyn karaan waxbana kuma dari karaan kuwa hadda beenta u sheegeen ay leeyihiin sidaan yeelana hoobiyaha madaxtooyada iska celiyeen waxbana kama qaban karaan waxna kama dhisi karaan talaabana kama sameyn karaan awoodna uma ila waxay iska celiyeen wax iyaga haysta dhexdooda ka jira waxa la ugu yaqaanaa iscafis isxushmayn isqadarin isu keenis bulsho isu ururin ba Jubbaland ay ku dhisantay taasaa keentay wixii shalay soo dhacay oo dhan waxaan kaga gudbinay inay sabab noqotay waxaan sameynay dadaal dheeraad oo in allaaliyo intii wax tabanaysay qof walba oo isagu ay dhab ka ahayd intaan u yeedho inaan la fadhiisano inaan qancino oo aan xalino oo la xaajoono oo maanta soo dhameystirno waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiisha iyo ciidamada Jubbaland shacabka reer Jubbaland doorashadii nabadda ku qabsoontay waxaan rabaa inaan markaan intaas oo dhan ka soo tagno aan wali diyaar u nahay dawladnimo Soomaaliyeed oo la shaqeynaa in la helo oo aan ka wada shaqeyno waxa ugu horeeya maanta waxa laga hadlayaa deynta in la cafiyo Soomaaliya qof kasta oo Soomaali oo garanaynin deyntu waxay tahay deyn baa lagu leeyahay in la naga cafiyo shacabka Soomaaliyeed bay dan u tahay waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo dastuurka dhameystirkiisa waxaan rabnaa si sharciga doorashada 2020 looga wada shaqeeyo waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo shabaab iyo sidii wadanka looga saari lahaa aanu soo jeesano laakiin yaa laga shaqeynaya waa in la hel cid laga shaqeyn lahaa